qaraxyo iyo israsaaseyn saaka ka dhacay hoteelka dayaxa ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen ku dhowaad 20 qof. abbaara 9kii aroornimo oo daqiiqado la ayaa gaari weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyay dibadda hoteelka dayaxa oo ku yaala wadada Maka al Mukarrama. dabadeed rag hubeysan ayaa ka soo degay gaariga daqiiqada kadibna markii uu qaraxu dhacay iyagoo u gudbay barxadda hoteelka halkaasi oo uu ka bilowday dagaal culus oo u dhaxeeya raggii weerarka soo qaaday iyo ilaalada hoteelka. khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh ayuu geystay qaraxii koowaad sababtoo halka hoteelku ku yaalo waxaa ka ag dhowaa goobo ganacsi oo aada looga tukaamadaysto iyadoo wadada uu hoteelku ku yaalana ay gaadiida badan ay isticmaalaan. 40 daqiiqo ka bacdi ayaa rasaastu socotay gaari kale oo loo malaynayo in uu ahaa kii ay ka degeen raggii weerarka hoteelka ku qaaday uu qarxay. waxaa halkaasina ka dhashay khasaare kale oo dhimasho iyo dhaawacba leh, waxaana ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi 2 ilaa 7 wariye oo u kala shaqeeya warbaahinta caalamiga iyo kuwa maxalliga ah. hoteelka la weeraray waxaa deganaa qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin. dhimashada weerarka uu dhaliyay ayaa la isku khilaafsan yahay iyadoo saraakiil gaadiidka gurmadka degdega ee Al-Aamin Ambulance ay sheegtay inay ku arkeen goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen dad ka badan 20 qof. ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa sheegay in uu soo afjaray howlgalkii uu ku waday gudaha hoteelka dayaxa. Cabdiraxmaan Ismaaciil Ducaale, Dayaxa Media. Hello?